kulankan oo qabanqabadiisa ay iska kaashadeen waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Karkaar ayaa waxaa lagu taageerayay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo waxyaabihii uu qabsoomay 9 bilood ee la soo dhaafay. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in talaabo sharci laga qaado dadka carqaladda ku ah nidaamka dawladnimada. duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan Dheere ayaa daahfuray kulanka. waxaa marka bilaamay maalmahan ama hadda shaashale u jeedeen golaha baarlamaanka qaybtiis in ay ka bilowday fowdo kalfadhiga dhexdiisii runtii baarlamaanka waxaa loo abuuray ama waxaa laga soo doortay shacabka ayaa soo doortay waxayna ku joogaan meesha matalaadda shacabka waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka wadanka ayaa loo geeyay meesha bulshadana ay matalaan laakiin in ay ka hor keenaan bulshada dawladda looma keenin meesha waxaa leenahay marka wixii shalay meesha ka dhacay baarlamaanku waxay qaybtiis waliba baarlamaanka ma ahay ragga qaybtiis waxay ka sameeyeen waxyaalo aan u cutamin shacabkii soo doortay nabadoono waxgarad haween dhalinyaro iyo siyaasiyiin oo ka hadlay goobta ayaa si qoto dheer uga hadlay horumarka xilligan ka socda guud ahaan deegaanada Puntland sidoo kalena waxay xuseen in la ilaaliyo nidaamka dawladnimada ee ka jira Puntland. Saciid Cabdullaahi Denina adeer inta uu joogay meel kasta xasishay meel kasta oo bahal ku jiray inay xasishay baanu marag Ilaahay ka nahay oo waxa ugu weyn Boosaaso oo bahal galeena oo daacis iyo gaalkacyo labadaba qaabka way tahay maanta inuu wax ka bedelay janaaladii ciidamada qaranka ka shaqeyn jiray buu hawlgeliyay oo caawa waxaan xusuusay hergoble markii ciidamadu dul deganaan jireen waagii Sheekh Cabdullaahi Yuusuf baa waxaan ugu tagay Arays janaal Arays anigoo nabad kala hadlaya waxaan ugu tagay janaal Cabdul Ali Shire waxaan ugu tagay janaal Goray Cawl janaal Saciid afar janaal waa yaabay qarankii Soomaaliyeed baa madiina soo noqday raggii buu Saciid Cabdullaahi soo celiyay oo caawa kontareefaan u dactiray oo abqaale dayactiray oo xeeladii xurguble oo guutooyinka militariga qaranka Umar Gacali fadhii jireen hagaajiyay oo sanaag ciidamadii ka hagaajiyay oo Puntland wasiiro iyo amni geeyay Boosaaso oo gaalka ay geeyay maanta ninkii banaanka seexda waa ku gamaaya meesha la dhaho Boosaaso waxay ku soo jirtay dhibaatooyin aad u fara badan oo xal loo waayay dawladda Deni waxay ku guuleysatay number 1 hooyadii Puntland inay nabadayso oo lagu guuleysto in ay nabad hesho isaga noloshiisa Puntland inta ay dhibaatada Boosaaso ku jirtay kama uu hadlin maanta oo ay nabad heshay Boosaaso inuu calaam su'aal u soo qaato waa khalad baarlamaanka badankiisu ma wada aha waxa la yiri baruuraha baruur baa qurmisa dad baa qurminaya shalay hadalkii dhacay oo Puntland oo dhan lagu madax goostay oo anshaxeeda wax laga sheegay oo amnigeeda wax laga sheegay oo dhaqankeeda wax laga sheegay oo xukunkeeda wax laga sheegay oo shacabkeeda wax laga sheegay mid loo adkeysan karo maaha mid geli kara cayaar geli kara mid la isku dhaafi karo waxaanu leenahay dawladda Saciid Cabdullaahi Deni nin walba sharciga ka sareeya waxaanu aaminsanahay waxaanu xaqiijinaynaa waxaanu marakanahay in wadadii horumarka haddeer agta la saaray waxaanu leenahay ninkii ka hor yimaada liibaane waa mid si kalaysan ee maaha mid samaan doonaya annaga ayaa og amni darro maanta Puntland ka jira ma jiro Puntland maanta waa nabad waa meel lagu hiran karo waa meel lagu soo dhawaan karo waxay Soomaalidu tiraahdaa wiil dhashay ma dhaasho dawladdu 9 bilood bay jidhay 9 bilood ay jidhay intay qabatay haddii intii kuwa hore badan baan qaban Islaan Mahad Islaan Maxamuud ayaa ugu dambeyn ka hadlay kulankan ay yeesheen shacabka qaybihiisa kala duwan ee gobolka Karkaar inaad adigu sheegto dalkaaga dhibaato aan ka jirin iyo ceeb aan dalkaagu lahayn adigoo waliba xasaanad leh arintaas waxaanu qabnaa inay qaban reer Puntland geeyin in sidaas looga hadlo cidda ku hadashana waxaanu qabnaa inayn ka mudnayn ciddii soo dooratay oo matalayeen oo reer Puntland inay yiraahdaan Puntland wax amni kama jiraan Puntland waa 9 gobol 9 gobol oo Puntland oo jira
waynu ka warhaynaa gobolka maanta dadkiis uu ku nool yahay walwalka iyo walaaca amni gobolkeeya ma jiro gobol walaac iyo walbahaar amni ay ku nool yihiin dadka ku nool oo reer Puntland oo jira ma jiro